sheekada filimka waxay ku bilaabmaysaa in mustaqbalka ay dunida iska bedeli doonaan waxyaabo aad u tiro badan bini'aadamkana waxay samaysan doonaan isbedelo dhowr ah si naftooda u badbaadiyaan taasi oo kaliya maahane waxaa jiray meel ay degan yihiin shisheeyaha waxayna halkaan u hayd saldhigooda iyagoo halkaan isugu imaan jiray maxaa yeelay meerahoodii ay ku noolaayeen ayaa ka barobaray waxayna yimaadeen halkaan si halkaan ugu noolaadaan dadkii bini'aadamkaana waxay ka sameeyeen hal abuuro badan imaantiga ay halkaan imaanayaan shisheeyaha ka yimid dunida kale sidaas awgeed waxaa halkaani ku wada noolaa shisheeyaha iyo bini'aadamka waxayna ku wada noolaayeen hal magaalo waana inay sharciyada isla waafaqaan si ay markaas ugu noolaadaan si nabdoon haddii qof bini'aadam ama shisheeyaha uu raaci waayo sharciga halkaan u yaalla waa la ciqaabi doonaa hadda dhowr maalmood kadib waxaan aragnaa in dhagaxyo ahraama oo aad u waaweyn ay salame filaan ugu soo dhaceen magaalada meel ka mid ah laakiin dadkii si dhab ah uma rumaystan inay yihiin waxaasi wax jira sababta waxay hore u ogaayeen inay halkaani kula nool yihiin shisheeyaha iyo farsamadooda taasina waa sababta ay sidoo kale u malaynayeen inay midaani tahay waxay ka dambeeyaan shisheeyaha hadda albaabkii dhulka ah ee shisheeyaha kasoo geli jirin ayaa dhib ka dhacay dhibkaasoo ah shay kasta ee albaabkaasi ka soo gala inuusan dib u laaban karin bini'aadamkana wax badan ayay isku diyeen inay shisheeyaha dib ugu celiyaan jidkii ay ka yimaadeen laakiin markii qof gudaha ogolo jidkii ay ka yimaadeen shisheeyaha isla markiiba qofkaasi waa uu dhimanayaa midda jirta ayaa ahayd in shisheeyaha ay hadda ku nool yihiin adduunkeenna caadiga ah hadda waxaan aragnaa diyax gacmeedka shisheeyaha hawada sare kaasoo dadka shisheeyaha iyo dadka bini'aadamkaaba lagu qaadi jiray kuwaasoo wax badan laga bedelayo markaana waxaan aragnaa gabar lagu magacaabo jiil xitaa gabadhaana jirkeedii oo dhan waa la bedelay sidaasay daraaddeed ma aysan ahayn bini'aadam mana aysan doonaynin inay tagto goobta ay joogaan shisheeyaha waxayna markaas weer ku qaadaysaa waardiya halkaasi joogay iyadoo bilowda inay dhammaantooda disho kadibna isla markiiba waxaa loo geliyey qalab bir ah oo wejiga iyo madaxaba loo geliyey si aysan mar dambe cidna u waxyeelaynin ma jeclinaa filimka kaa dhex galo balse haddii aad weli muuqaalka iska daawanayso aadan noo laagaraynin noo laagaray muhiim ayay noo tahay haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir kadibna waxaan aragnaa isla dhagaxii aan soo arkayna inuu run ahaantii ahaa ahraamtii masar isla dhagaxaantii ahraamta waxaa ka soo baxaya shisheeyihii ugu weynaa shisheeyahani waxa uu ahaa taliyahooda waxa uuna u ekaa shanbar weynaaday midka shisheeyahani ugu weyn waxa waa mid aanan dhimanaynin waxayna la micno tahay inuusan weligiisa dhiman doonin laakiin shisheeyahani waxa uu leh awood aanan caadi ahayn taasoo inay dib u helaan noloshoodii hore waana inuu guursado haweeney ku nool dhulka oo ilmaha dhalan doona waxay noqon doonaan dhashii labaad ee shisheeyaha hadda shisheeyihii ugu weynaa waxa uu raadinayaa qof shaqadiisii ka soo bixi kara laakiin sidaas uma sahlanayn awoodiisa maxaa yeelay waxa uu lahaa awood aanan caadi ahayn waxa uuna haystaa waqti gaaban inuu xaliyo dhibaatooyinkiisa haddii uusan dhibaatooyinkiisa iska xalinin waxaa lumi doona jiritaankiisa waxuuna soo baxayaa bannaanka si uu qiimeeyo jawiga magaalada bas laba diyaaradood oo helikabtar ayaa halkaasi yimid waxayna arkeen shisheeyahani la yaab kale laakiin shisheeyihii ayaa adeegsanaya awooddiisa isagoo isku dhufanaya helikabtaradii wax uuna burburinaya diyaaradihii waxa uuna leeyahay dib ayaan u soo noqday isagoo soo aadiyay dhulka ay bini'aadamka ku nool yihiin waxa uuna isku bedelayaa shimbir aad u weyn hadda waxaan aragnaa sheebaarkii la keenayay jiil iyo dadkii intiisa kaleba waxaan halkaani ku aragnaa saynisyahan kaasoo xiiseynaya tayada ee markaas leedahay jiil saynisyahankana waxa uu ahaa ninkii xadidayay kaasoo weliba af u gelinayay birta si ay markaasi cidna waxba u yeelin markaana jiil waxaa loo ogolaanaya inay markaan xor tahay oo ay tegi doonto halkii ay doonto inkastoo jiil aysan waxba ka xasuusan waayaheedii hore markaana jiil waxay soo raacaysaa dayax-gacmeedka ila socotiyadu halkaas kasoo dhaqaajinaysa markaana magaaladii ay ku noolaayeen bini'aadamka waxaa laga sheegayaa inuu magaaladani kusoo socdo shisheeyihii weynaa kaasoo weliba awooddiisa isaa ay tahay haddii uu halkaan yimaadana wax walba uu burburin doonaa waxaana magaalada madaxda kaaninkaani u subuuran wuxuuna markaani ka walaacsan yahay awooddaani culus oo kusoo socota magaaladooda maxaa yeelay wax uu doonayay inuu dadkiisa kalsooni badan ka kasbado isagoo waqti xadirkaas loo soo jeedinayo eedayn badan waana qasab inuu markaana difaacdo sumcaddiisa hadda markuu arrintaana maqlo dhibaatadiisii ayaa sii siyaadaysa maxaa yeelay waxaa kusoo wajahan awood aanan caadi ahayn laakiin ninkaani dadka madaxweynaha waa waxaad moodaa inuu yahay nin kaartoon ah hadda iyaga dhibkii haystay waa uu sii siyaadiya iyagoo markaasi ogaaday in 4 qof oo magaaladii ka mid ah si layaable loo dilay laakiin iyaga gacan kudhigli weli ma aysan soo qabanin sababtaas awgeed dadka bini'aadamka waxay ku noolaayeen cabsi iyagoo markaasi kalsooni darro u qaaday madaxweynahooda hadda arrintaasi waxaa loo xil saaray isbatoore si oo markaasi kiiskan u soo xalliyo waxuuna isla markiiba tegayaa goobtii lagu dilay dadkii waxuuna arkaya xaaladda meydka oo halkaani ka jirta waxuuna leeyahay dilkaani waxaa geystay dilaa waalan oo khatar ah maxaa yeelay qaabka meyd kale loo dilay ayaa ahaa mid arxan darro ah markaana markhaatigai magaalada ayaa markaana loogu yeedhay saldhigga balse intii uu jidkii kula sii socday baabuurkiisa ayaa wax uu galayaa shil aad u xun
waxaana isla goobtaasi ku geeriyooday askarigii watay gaariga. Horta waxaad ogaataa filimkan maanta ka sheekeynayna waxa uu ka hadlayaa waxa dhici doona sanadka marka uu noqdo 2095, laakiin markii uu ninkii marqaatiga ka soo baxa gaarigii wax u dhaqmay asliyaab leh kadibna waxa burburiya jirkiisa isagoo markaan halkaas ku dhimanaya. maalintii xigtay waxaan aragnaa saynisyahanada iyo Jill, waxayna saynisyahanada Jill wax ka weydiinaysaa xasuusteeda, kadibna Jill ayaa uga jawaabaysa aniga ma jiraan waxaan xasuusto, laakiin saynisyahanada ayaa markaas ku dhehaysa wax walba waad xasuusan doontaa. waxayna markaasi saynisyahanada siinaysaa baabuur hotel ka samaysan, waxayna meeshaan ugu noolaan doontaa si xor ah. markaan intay jilalkaasi ku nooleed waxa uu imaanaya ninkaas oo aanan arki karin wejigiisa, maxaa yeelay jirkiisa iyo wejigiisa oo dhan waxaa ku daboolnaa maro madow. waxayna aad ugu faraxday inay ninkaani aragto iyadoo markaas isku duubtay. waxuuna u sheegayaa Jill inaysan iyada ahayn qofkii yimid duni kale, balse ay ka mid ahayd bini'aadamka ku noolaa dunidan, balse iyada sidaana laga dhigay oo sidaani loo bedelay. laakiin wuxuu u sheegayaa in iyada ula joogi doonto si nabadgelyo ah, waa uuna bixi doonaa muddo kadib. markaana waxaan aragnaa in magaalada dusheeda uu ku yaalo jeelka weyn maxaabiista, kaasoo lahaa qolal aad u tiro badan kuwaas oo ay ku jiraan maxaabiist tiro badan. waxayna lahaayeen qolal hurdo ah kuwaasoo lagu hurdo, taasoo micnaheedu ay tahay in markaasi dadka la seexin karo iyagoo markaas hurdiga hurdo dheer si markaas waqtiga ciqaabtooda ay u dhaafto. laakiin waqti xaadirkaasi waxaa dhacay qalad, waxaana halkaasi yimaadaya booliiska si halkan u baaraan. waxayna markaan halkaasi ka heleen 2 maxbuus oo ku jira 2 qol, halka qolkii saddexaadna uu ahaa mid bannaan, taasoo micnaheedu ay tahay inuusan ku jirin wax maxbuus ah. intaas kadib waxaa halkaas imaanaya shisheeyihii weynaa isagoo markaasi baashiisii ku duulaya, isagoo markaana kor ka fiirinaya askartii booliiska oo halkaani ku sameynaya baaritaankii. waxayna markaan askartaani leeyihiin labadan qof waaba aragnay aaway qofkii saddexaad xaguu ka baxay. laakiin markaan shisheeyey waxa uu imaanayaa ninkii markaasi lugtiisii dhul ku soo dhacday oo ay askartii waayeen. dhammaantii ninkaana markii halkaas ka soo dhacay waa uu badbaadiyey isagoo halkaani ka laalaada, balse waxa uu ahaa dhaawac aad u daran. maxbuuskaana magaciisa waxa uu ahaa Nick Ball, waxuuna soo qaadaya Nick Ball isagoo markaasi soo kaxeynaya. markana Nick Ball waxaa soo laabanaya dareenkiisa isagoo markaana arkaya shisheeyihii weynaa, laakiin shisheeye ayaa markaas u sheegaya inuu isaga yahay mid aad u awood badan oo uu u baahan yahay inuu markaas isticmaalo jirkiisa si uu markaas ugu noolaado adduunka bini'aadamka. waxuuna u sheegaya inuu isku dayo inuu dad badan qaato meydkooda, balse wuxuu u sheegayaa shisheeyihii inaysan cidna u adkeysan karin iljooggiisa oo markay dadku u soo dhawaadaan oo ay dhiman jireen. laakiin isaga wuxuu u sheegaya inuu adkeysi leeyahay oo waaba isaga haddala jooga uusan dhimanaynin. wuxuuna ku leeyahay hadda kadib waxaan ku dhex noolaan doonaa jirkaada ilaa aan ka dhammeeyo ujeedooyinkaygii aan u imid dhulka. ninkii Nick Ball lahaa waxaas oo dhan aad ay u yaaban yahay, waxba ma uusan ka fahmin. laakiin markii uu arkay inay lugtiisii go'an tahay aad ayuu u naxay. laakiin shibirkii shisheeyaha ayaa markaas u sameynaya lug bir ah, laakiin lugtii birteed aad bay u cuslaatay isagoo markaas ku socon waayey. sidaasi awgeed waxaa jirkiisii galaya ninkii shisheeyaha isagoo markaas ku soconaya. waxuuna markaana si fudud u bilaabaya inuu lugeeyo isagoo markaasi dareemaya awood aan caadi ahayn. waxaa markaan aragnaa ninkii isbatooraha kaasoo baarayay meydkii, laakiin isbatoorihii marqaatigii uu soo diray waxaa markaasi kala jaraya ninkii shisheeyaha ahaa isagoo halkaas ku dilaya. midaasi awgeed ninkan shisheeyaha wax uu raadinayo waddo markaasi uu isugu ekeysiiyo bini'aadamka uuna ku muujiyo awooddiisa. waxuuna waqti xaadirkaana helay ninkii Nick Ball lahaa. hadda waxa uu doonaya inuu markaasi ranaag u guursado oo markaas uu ku dhalo ilmo badan, kuwaasoo noqonaya dhishiisii labaad ee shisheeyaha. intii markaasi ay xaaladaasi jirtay waxaa halkaas imaanaya helicopter iyadoo markaasi weerar ku soo qaadaysa ninkii Nick Ball iyadoo markaasi tooganaysa. waxayna isku dayaysaa inay soo afjarto ninkii Nick Ball lahaa. markaana waa uu soo cararayaa si halkaan ugu baxsado isagoo markaasi cararaya. intii uu cararayay waxaa markaasi soo weeraraya askartii iyagoo markaasi doonaya inay halkaas ku dhameeyaan. waxuuna markaasi kasii cararaya askartii isagoo markaan ugu dambeyntii tagaya meel cirif ah oo aad u dheer. waxuuna durbadiiba iska tuuriya halkaas isagoo halkaas iska laaleynaya. waxuuna markaana dareemaya inuu halis badan ku sugu yahay maadaama uu isaga qof caadi ahaa. laakiin intii uu sii dhacaya ayaa waxa uu yeelanayaa baalal isagoo markaasi badbaadaya. waxaana markaan ogaanaynaa weerarkii Nick Ball lagu soo qaadayo inuu ka dambeeyey madaxweynihii, sababtoo ah madaxweynaha iyo aabihiisa waxay sameeyeen tijaabo badan, waxayna tijaabooyinkaasi ku ogaadeen inay khatar badan ku yihiin shisheeyaha. waxuuna madaxweynaha ogaa sirtaani waa sababtoo markaas u soo weeraray ninkaan Nick Ball ah. kadibna waxaan aragnaa gabadhii Jill iyadoo markaas cunaysa cunto badan. intaas kadib waxaan aragnaa ninkii Nick Ball iyo shisheeyihii. waxaana markaana shisheeyihii u sheegaya ninkii Nick Ball ujeedooyinkiisa gaarka ah isagoo markaasi doonaya inuu markaana guursado naag ka mid ah bini'aadamka. kadibna ninkii Nick Ball waxa uu soo aadayaa goob baar ah. waxaana halkaasi joogtay gabadhii Jill isagoo halkaas ugu tagaya, waxayna bilaabeen inay wada hadlaan. Nick Ball waxa uu bilaabay inuu aad u jeclaado gabadhan Jill, laakiin shisheeyihii ayaa markaas u sheegaya inay naagtaani tahay naagtii uu guursan lahaa. laakiin iyada ma aysan ahayn mid dhegeysataa, sababtaas awgeed wax uu soo wadayaa Jill. waxaana markaas wadanayaa Jill isagoo markaas kasoo sameysanaya wax alaala wixii uu doono. markii Nick Ball ee markaas ka tagtay gabadhii Jill waxuu markaas bilaabay inuu markaas la hadlo ninkii shisheeyaha ahaa. Nick Ball markaana aad ay ugu cadhooday wax uu sheegay ku sameynaya gabadhan Jill.
waxaana markaas ku leeyahay qalad badan ayaad gashay laakiin ninka shisheeyaha ma danaynayo isagaa sababta wax uu haystaa waqti gaaban laakiin waxa ku xanaaqaya ninka shisheeyaha isagoo markaas kor u qaaday ninkii Nick Paul lahaa waxaana markaas ku leeyahay waqtiga ay gulumin maxaa yeelay waxaan haystaa waqti gaaban markaana waxa la ninkii Nick Paul waxaan halkaas ku soo weeraray xayawaan aan la garanaynin nooc uu yahay waxaan waqti xadirkaas ku dhex jiray shisheeyaha waxa uu isku bedelayaa shisheeyaha balse shisheeyaha ayaa markaas xayawaankii ka tuuriya waxaana markaas bilaabay inuu markaas gabadhii jiilheed madaxa ka taabto waxaana shisheeyaha ka duuriya halkaas isagoo halkaas ka dhaqaajinaya balse markaana waxa ragnaa ninkii madaxweynaha oo markaas waxba ka qaban waayay ninkii shisheeyaha waxaana markaana si toos u soo weeraray ninkii shisheeyaha isagoo markaas halkaas kala baxaya waxaana markaas bilaabay inuu markaas adduunyadiisa geeyo horta maanta muuqaalkeena waxa waa mid ka hadlaya markii uu waqtigu u noqdo 2095 sida ay dunida noqon doonto waxaana la sii saadaaliyay inay dunida noqon doonto sida aad hadda ku soo daawateen filimka balse waa iska madadaalo oo kaliya waxa dhici doona Rabbi subxaanahu wa ta'ala ayaa og maanta muuqaalkan intaas ayuu ka yahay intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino